بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن داوديال ميل كستا ودنقا داونيسان ومركل iyo barnaamijka dooda royal oo si toos ah kaga imaanaysa stuudiyaha aanu ku leenahay galbeedka magaalada London anigoo Maxamed Yuusuf ayaana barnaamijka idin la socodsiinaya barnaamijka dooda toddobaadkan waxyaabaha aanu kaga hadli doono waxaa kamid noqon doona xiriirka ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya haddaba su'aalaha la isweydiin karo waxa ay noqon karaan xiriirka ka dhaxeyn kara maamul goboleedyada iyo dawladda sidee buu noqon karaa sharciyada dawladda federaalka Soomaaliya ama qaabka ay qaab sharci ula shaqeyn karto maamulada kale ee dalka jirana sidee bay noqon doontaa wasaaradda lagu talagalay arrimahaasi federaalka ma keeni doontaa qorshe sax ah oo markaasi ay dawladdu kaga hesho dawlad goboleedyada canshuurtii ay u baahneed qodobadaasi aynu barnaamijka kaga hadli doonaa si gaar ah waxaan uga sii hadli doonaa booqashadii saddex madaxweyne maamul goboleed ay magaalada Muqdisho ku tageen oo kala madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe barnaamijka inta aanu ku jirno sidoo kale waxaan istusin doonaa sida ay markaasi ku dhameystiri karto dawladda federaalka Soomaaliya arrimaha kale ee haray ee ku saabsan dhismaha maamulada dhiman waxa kale oo iyadana aan ka doodi doonaa oo barnaamijka aanu ku soo qaadan doonaa hadba sida loo maareyn doono magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir oo ilaa iyo hadda iyadoo aan markaasi lahayn gobolka ama meesha ay raaci doonto iyo haddii uu jiro qorshe markaasi ku saabsan in iyadu ay noqoto maamul gaar ah oo iskiis u taagan oo kamid noqda maamulada kale ee laga dhisayo dalka Soomaaliya barnaamijka waxaa marti ugu ah oo igala qayb gali doona Axmed Cabdalla Liibaan oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista geeska Afrika iyo istiraatiijiyadda sidoo kale barnaamijka waxaa isna marti ugu ah oo igala qayb qaadan doona Cabdiqaadir Suufi Maxamed oo dadku ay u yaqaanaan Murudi Golof oo horena ugu soo noqday safir ku-xigeenada dalal badan oo ay kamid yihiin Kuwait, Switzerland iyo dalka Faransiiska sidoo kale waxa uu yahay agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee arrimaha qaaradda Asia haddana waxa uu yahay gudoomiyaha ama madaxa xisbiga cadaaladda iyo sinaanta dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka dooda royal ee telefishinka marka hore haddaan ku bilaabo Murudi Golof waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sida aad la socoto waxaad ahayd dadkii ugu horeeyay ee federaalkan markii la bilaabayay shirkii Embagati ka qayb galay isla markaana waxa soo noqotay musharax madaxweyne inkastoo markaasi uu ka guuleystay Allah u naxariistay madaxweynihii Cabdullaahi Yuusuf Axmed federaalka barigaasi marka Soomaalida la siiyay muddo waxa muddo inuu noqday mid soo jiitamay oo ilaa hadda xitaa ay dhiman yihiin wali maamul goboleedyo aan dhameystirin dawlad walba imaanayso ku meel gaarana waxa ay markaasi sheegaysaa inay dhameystiri doonto arrimaha dawlad goboleedyada iyo federaalka marka sidee kula muuqataa xiriirka ka dhaxeyn kara dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada hadda jira aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Yuusuf barnaamijkan qurux badan sidaa soo haqaysay runtii aad baan u jeclaystay iyo su'aalaha ay weydiisay haddaan kaaga waramo maaragtay dhismihii hore waxaan soo joogay shirkii Embagati raggii maaragtay waxaan ahaa waxa ka soo dhisay dastuurka maanta federaalka markaas waxay ahayd 2002 ilaa 2004 u socotay dastuurka sameynteeda iyo maaragtay federaal qaadashada marka haddii aad fiirisid weli hawshii fara kama qodno hawshaas waxay ahayd bilow oo maaragtay Soomaaliya hiigsanaysay inay federaal noqoto laakiin weli ilaa hadda freedom ma loo sameyn maaragtay dastuurkii ma dhamaystirna hawl qabyadkii waagaas 2002 ay bilaabatay ilaa hadda waa socotaa welina hawshii farka ma qodno macna federaal hadda ma leeyahay karo Soomaaliya marka xiriirka ka dhaxeeya dawladda hadda jirta ee dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh iyo dawlad goboleedyada waxaad u aragtaa weli inaanu heerkii loo baahnaa gaarsiisnay weli hawshiisa ma gaarin waayo uma bilow hadda waxa heer wuxuu taagan yahay bilow laakiin bilow xitaa waqtiga horena dawladihii ka horeeyay laftooda bilow waxa muddan hadda laga joogo dabcan 2004 oo dawladdii ku beelgaarka ee federaalka la soo dhisay ilaa hadda waxa malaysaa waqti aad u fog inay tahay marka maxay kula tahay caqabada hortaagan oo wax looga qaban lahayahay in la gudbo oo la helo dawlad goboleedyo rasmi ah oo dawladda dhexe dhamaantood hoos taga horta marka hore waxaa loo baahan yahay marka Soomaalida horta inay u bislaato in maaragtay federaalka muxuu yahay marka waxa qabtaan Soomaalida u bislayn Soomaali weli ma bislaa waa tahay Axmed Cabdalla wala socotaa arrinta ku saabsan xiriirka dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ama dawladda federaalka Soomaaliya in muddo waxa uu ahaa mid waxoogaa mugdi uu ku jiro si gaar ah markaan uga hadalno Puntland oo kale dhowr jeer waxa ay sheegtay inay xiriirka u jirtay dawladda dhexe maanta waxa tagay magaalada Muqdisho madaxweynihii Puntland madaxweynihii Koonfur Galbeed iyo madaxweynihii Jubbaland
maxay kula muuqataa marka ma la dhihi karaa aragtidan waxay muujinaysaa in wax badan ay isku soo dhawaadeen dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe? bismi illahi raxmaan raxiim. horta dhammaan waxaan salaamaya shaqaalaha Royal TV doodan quruxda badan noo sameeyey. runtii intaan jawaabtaada u gelin sanadkan horta Soomaalida waxaan sanad walba horta qowmiyadii hore caalamkii hore faraacinadii hore iyo dowladii hore oo fircoon masaaridii xadaaraadkii hore sanad walba waxay u baxsan jireen magac. marka run ahaantii anigoo taas ka tusaale qaadanayo Soomaalida hore xataa inta kastoo faraacinada kaliya anagoo dhihin marka sanadkan horta waa inaan u bixinaa sanadkii xaqiiqada 2015 xaqiiqada oo Soomaalida xaqiiqada loo sheegaa wax xaqiiqada ah oo lagu kala baxaa runtii dhabta jirto. maxaa yeelay waxaa jira filosof Germany ah oo Almaani ah oo wuxuu yiri ما يلزم على البشر هو تشاؤم الفكر وتفاؤل الإرادة. معناها تاس وحواي تشاؤم الفكر قفك إن وفكر كيسة ووح هذيك مر والبا دبعتها صوص عطا وكفكره إرادتي سنة وحيابها صوص عطا صد أواجه لها وإرادتي سأكواجهه. مركز تاس مركز كسر عرون أنتي Soomaalidii ما فهم سنتها سو هذا ولالك مريد أن مشوا golf su-aashii meesha ugu dambeysay hadalka uga haray haddaan ka daba qaato Soomaalida weli ma u bislaatay federalism horta federaal muxuu yahay runtii marar badan ayaa halkan ku faahfaahinay wuxuu federalism uu yahay iyo nidaamka federaalka ah kelimada federaal xataa markaa fiirisid macnaheedu waa macna al-ittihaad waa mideen حتى كلمة مركز الله فيريو عالم كان ودمدا فدراليزم كقاطع عالم كمركز اسكو سو دردرنو ولا باتن دولدود قارده افريكana waxa ka qaadatay Ethiopia iyo Nigeria oo labadooduba ah marka ay fiirisid qaab dhismoodkooda iyo mujtamacooda sidoo dhisan yahay qowmiyad fara badan ka kooban marka ummadda Soomaaliyeed system ahaan runtii system anfacaya aniga ma aaminsan inuu yahay nidaamka federaalka ah laakiin xataa hadii la yiraahdo Soomaalidii xiriirka ka dhaxeeya hadda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe hadda waxa muddo in mugdi ku jiray inkastoo hadda xogaa had moodo in wada hadallo ay socdaan oo hadda Muqdisho ay joogaan saddex madaxweyne oo dowlad goboleed arrintan ka waran runtii waa waxa oo tiro lagu farxo waa runtii maanta in dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya ku waaweynaa magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin oo meeshii ay ka aadi jireen Addis Ababa aan ka baranay Nairobi oo magaalada Muqdisho ay u ahayd wadanka caamal ay la dhaqmi jireen runtii waa soo dhawaansho laakiin wali farqa ma qodna ay aaminsanahay waxyaabaha ay ka wada hadlayaan hadda waxa la leeyahay muriidi haddaan adiga ku soo laabto xiriirka dowladda dhexe lafteeda kamid ah waxyaabaha hadda laga hadli doono oo saddexda madaxweyne dowlad goboleed iyo dowladda dhexe ka hadli doonaan waxaa kaloo iyana la isku soo qaadi doonaa arrinta ku saabsan federaalka lafteeda oo in la bisleeyo u baahan ilaa hadda ma qorna xeerkii xitaa ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedka ku wada shaqeyn lahaayeen hadday noqon lahayd dhinaca canshuuraha oo kale gobolka inta uu dhiibayo dowladdu ay ku leedahay weli ma kala cadda waxaa kaloo jira iyana in higsiga 2016 ay noqoto hadda Soomaaliya meesha loo wado loo ordayo marka maxay kula muuqataa kulanka Muqdisho ka dhacay arrinta lafteeda looga hadli doono maxay kula muuqataa ma is leedahay waxba ka soo bixi doono oo dowladda waxay ku qanci doonaan nidaamka ay dowladda dhexe ay wadato runtii horta maaragtay horta Soomaaliya markay wada hadlayso macnaheedu waxa waaye maaragtay aan wada hadalno aan heshiino waa macnaheedu marka Soomaalida hadii dhexdooda ay heshiinayaan oo wadan kale sida Ethiopia ama Kenya ama meel kale bulshadeen oo dhexdooda heshiinayaan waxaan dhihi karaa maaragtay guul talaabo hor loo qaado way Soomaaliya waxay noqonaysaa marka inay isku tashanayso oo maaragtay xaqiiqada maaragtay runta ah inay istaabsinayaan waayo oo maaragtay dowladda federaalka waxay u baahan tahay taakuleen gobolada hadii dowladda dhexe oo la kala istaagta hadday aysan ka bixi gobolada hadii la dhiso maamulkooda iyo loo hagaajiyo mid kasta todoba qayb loo qaybiyay federaalka sida la socotay todobada maamul waxa loo baahan yahay in cashuurta macna kala bar in loo soo shubo dowladda dhexe ay ku maareyso qaranimada Soomaaliya sida militariga in la dhiso booliiska la dhiso wixii maamul ah degadaha la horumarsiyo muxuu airborada gobolada loo dhiso horumar la gaarsiiyo iskuulaad iyo jaamacada iyo wax kasto maartay si uu maartay marka hore Muqdisho loo imaajir wax kasto in la siiyo authority regional authority aan ma aaminsanba federaalka inuu Soomaaliya ku fiican in lagu maamulo regional autonomy ismaamul goboleed sida hadda maartay ka muuqato dadka gobolada qaarkiisa ismaamul goboleed Puntland amal laakiin magaca federaalka shan nooc waa
midka ay Soomaaliya qaadatana si cad loo ma la oga hadda kan oo yahay hadda kooxda confederation federal miya centralism miya warka ku yahay hadda lama garanayo federal iska lana federal naftiisu wuxuu reeyay maartay in la darso laakiin ergadii ay bagaad ka qayb galay laakiin aniga bay waagiyo kala qaataa kamid ahayd lafta may federal aniga waagiyo hore aqoon muleen anaka hadda Soomaali waxa la federal la qaato anaka oo dhan waxaan leeyahay maartay federalka inuu keenayo maartay barwaaqo Soomaali horseedayo ayaan moodeen laakiin moodeen iyuu hadda suuq noqday waa kala labo dhibaato kastoo ka timaada ma ogashihiin oo hadda aday qaybaha ka dirgadii shirkan bagaad ka qayb galay federaalka lafteeda noo soo sharciyeeyay ma qaadanaysaan mas'uuliyadda haddii wax fashila uu dalka ku keeno kale tusaale ahaan oo dib loo dhaco kale mas'uuliyaddeeda ma qaadanaysaa may hadda fashil waa maartay wuu ku socdaa haddii hadda maartay dawladda hadda xukuumadda halka sano ay bar u ahaarsan haddaysan keenin didiilo cusub iyo dhaqdhaqaaq oo maartay horumarinayo sanad iyo barkaas in la gaarsiiyo gobolada la dhiso oo inta dhimanna la gaarsiiyo wasaaradda oo xil saaran waxaa saaran maartay culays xoog leh hadda ilaa hadda xukuumadda ma dhisno waa haysta Soomaaliya marka muumaleynay maartay in ayaga waxa waaye taas xogaa waxaan ka waa gadaal uga hadlaynaa runtii waa inaan dib ugu noqonaa marka federaalkii walaalkay muriidi oo dadkii soo dhiso ka mid yahay runtii sidii wuxuu u hadlay oo geesinimaha runtii oo xaqiiqatan aad aan u soo dhaweynayo sababtoo ah maamul ah ka mid ahayd markuu fashil ku dhawaado inaad qiratid inuu fashalkaas dadkii Soomaalidii u keena inaa ka mid tahay runtii waxay ka mid tahay geesinimada loo baahan yahay oo dimuqraadiyaddana Soomaaliya ay gaari doonto mustaqbalka insha Allah Ilaahay hadduu na gaarsiiyo markaan taas ka soo noqdo federalismka runtii waa central governmentiga oo yeelato dawlado hoose ama dawlado waaweyn oo marka xukuumadda markaziga oo centralismka ahna iyo wax walba ay gacanta ku hayso dawladdaas federaalka ah waa inay leedahay hal calan kaliya Soomaaliya hadda waxay leedahay 20 calan ay ka sii badan waa in militariga uu mid yahay militariga Soomaaliya ma midaysno waxaa ku soo haray dhinaca dhaqaalaha waa inay ka midaysan yihiin dhinac walba waa mideen inay ka jirto laakiin Soomaalidu runtii nidaamkan federaalka ah kama socon karo waxaana ka socon kara nidaamka dawlaalka oo sheega oo goboleysam ah in gobol walba Soomaalida dhibaatadii ay isku dishay waxay ahayd magaalada Muqdisho wax walba loo soo aadi jiray marka in laga qaado maamuladii la geeyo serviceki loo geeyo goboladii marka taa hadii la sameeyo Soomaalidu waa maamul ka socon karo laakiin nidaamka hadda federalismka ah oo aan lagu bushgareynayo runtii Soomaaliya ilaa hadeertaan ma dawlad xor ah mid kale xaqiiqatan inkastoo hadda qodobka qaarkood ay la yaabayaan oo jamhuuriyaddu way ka baxday la dhahayo waxaan ka baxnay kumeel gaar aniga waxaan aaminsanahay ilaa hadda kumeel gaar aan ku jirnaa inta ciidan ajnabi oo noo taliyo dhaqaalaheena ciidan kale uu maamulo in aanan wax isku filnaansho ah aan gaari karin marka maamul goboleedada la dhisaayana runtii ma aha wax horumar ah hadda waxa ka warqabtaa in la isku haysto gobolada dhexe oo la isku haysto magaalada Gaalkacyo ma mudug maxaa loo qaybinayaa nus iyo nus mase rubac laga dhigayaa xamar waxa la isku haystaa waxa haysato hadda koonfur galbeed idaacadaha lagama hadlo laakiin sida hoose waxa haysato gobolka Banaadir iyo koonfur galbeed maamulka laga sameeyay maamulka koonfur galbeed ilaa caaw wuxuu ku doodayaa in ay xuduudkoodu yahay masaajidka Marawaas iyo wixii ka dambeeyo marka halkaasna uu ku dhumaayo gobolka Banaadir taas waxa dhacayso in isqabqabsi iyo Soomaaliya hadda qoryaha la iskugu dhiibay iyo cusub ay bilaabato marka hadda waxa aniga ila haboon madaxweynaha hadda joogo madaxweyne Xasan Sheekh iyo maamulka hadda xukuumadda la soo dhisin doono sida ugu dhaqsiyaha badan in ay wax iyo baarlamaanka Soomaaliyeed oo asagana arinta looga baahan yahay inuu wax ka qabto sida ugu dhaqsiyaha badan hadda baarlamaanku waxa uu ka doodayay oo xitaa siyahayaha wasaaradda arrimaha gudaha kale uu ka dalbaday in dib loo dhigo arrimaha guddiga doorashooyinka madaxa banaanaay oo kale waxaan walaasay hiisigii 2016 hadii inuu yahay waxa ugu badan oo focuska ay saarayaan madaxda dawladda iyadoo weli ay jiraan daldaloolooyin badan oo gudihii dalka ka jira tusaale ahaan hadda federaalka xitaa haddii la yidhaahdo waa siday taa loo qaadanaya hadda ma dhamaystirna dowlad goboleedyadii gobolada dhexe laftooda weli waxay ka tagan tahay dood oo waxaa la leeyahay mudug ma la kala qaybin doonaa tusaale ahaan oo kale hiiraan lafteeda dhowr jeer ay qoraal lagu soo qoreen dawladdu ay leeyihiin anaga 2 gobol nagala dhigin intii aan raaci lahayn gobolka Shabeellaha Dhexe oo kale oo waxay ku cabanayaan in gobolkaasi uu yahay gobolka kaliya ee ugu ballaaran ee ka haray gobolada 18 ka ah ee aan weli la qaybinin 8 gobol Soomaaliya aan la qaybin weli marka ma idin muuqataa marka in dawladdii ay meel kale u jeedo oo international community-gu ay ayagu ay danaynayaan marka laga hadlo higsiga 2016 oo kale meeshii ay gudaheeda sixilayd muridaay horta maartay taas maartay doodaas waxaa malada shacbiga maartay guuxa dadweynaha markii aad fiirisid doodaas ayaamaan aad iyo aad ay ku xasan tahay
shacabka macguuxooda marka in maaragtay media la gaarsiiyo waa loo baahan yahay shacabka dhan waa dhibaataysan yihiin horta maaragtay gobolada banaadir iyo shabeelle dhexe iyo maaragtay iyo hiiraan marka intaas waxaan filayaa maaragtay in loo sameyn doono hal maamul oo maaragtay saddexdaas waayo waxa gadaal loo dhigay qaarna waxay leeyihiin hiiraan waxay ku doodaysaa in laba loo qaybiyo si ay u noqoto dowlad goboleed iskeed meel u taagan waa taas waa laga dooday hadda dhacay qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo uu ku sheegay in hiiraan laba loo kala qaybiyay hiiraan iyo shabeellaha sare wax la yiraahdo waa gartay hadda laakiin qaybtaas waxaan maleynayaa taas aanoo dambeyso haddaan ka hadlo tii maaragtay gobolka banaadir haddii la dhaho caasimadii maaragtay inay ahaato isla markaasna maamul goboleed inuu ahaado saasaa lagu wadaa laakiin hadda waxaa la sheegaya shabeellada dhexe iyo maaragtay hiiraan in la israacsiinayo marka ilaa hadda ma caddo marka qorsha hadda dawladda ay wado si qarsoodi may wadaa si waadaxa shacabka waxaa la rabaa inay ogaadaan saasaan waxaa la yiri qabri iyo ninka loo wado adaa hadda kamid ah dawladda waxaa tahay diblomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee u qaabilsan qaaradda Asia taa tusaale ahaan diblomaasi wax badan ka soo qabtay safaarado badan dibadda ku yeelana waa tahay maxaa uga hadli weyseen marka daldalooyinka noocaas ay jira daldalooyinka waa loo baahan yahay markii shacabka kaga hadlaa waa loo baahan yahay in maaragtay la gaarsiiyo media waxaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo madaxda sare inay maqlaan shacabka inay dhibaataysan yihiin in afka inay afkood xireen inay sheegaan dhib inay qabaan maamulka gobolka banaadir waxaa waaye dhibka hadda waxay kusoo socotaa maamulka gobolka banaadir wuxuu jiray markii hore ex banaadir waxaa la jiray shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo banaadir waxay jirtay ex banaadir hadda waxay noqotay ex banaadirkii oo waagii hore aan maaragtay baarlamaanka soo geli jirnay in la qaybsado marka waxaa anaka farta maaragtay aan wadnaan ku haynaa in saddexdaad qayb maaragtay oo qayb loo kala siibo oo banaadir kaliya soo hartana waa laga yaabaa inay maaragtay halkaan raacno laakiin ilaa hadda ma caddo intee u raacnaa marka Axmed Cabdalla maxay tahay marka sababta dawladdu ay arrimahaas daldalooyinka u dabalo laadahay oo ay kaliya isugu mashquulinaysaa doorasho dhacday higsiga 2016 oo dad badan oo siyaasiyiin ay qabaan inaanay suuragal noqon karin xilligan xaaladda dawladda ku jirta marka la fiiriyo run ahaantii dowladda Soomaaliya iyada isma maamusho oo waa dowlad la maamulo run ahaantii xagga militarigeeda dhaqaaleeda sida hadda aan kuu sheegaba runtii maadaama dowladda ay ismaamulin anaga waxaan maamulo dowladaha caalamka xiriirka sida Mareykanka oo kale wadamada dariska Kenya iyo Ethiopia ayaa maamulka Soomaaliya gacanta ku hayo oo wajaha xiriirka siyaasadeed ee Soomaaliya caawa ka jira iyo maanta dhan ka socdo run ahaantiina markaan usoo noqdo su-aashii dhinaca kale gobolka banaadir runtii waa meel muhiim u ah runtii dastuurka ilaa hadeertaan waxba kuma qorno lagamana hadlin waxaa ku nool magaalada Muqdisho 3 milyan oo Soomaaliyeed oo bini aadanka dadka shacabka ugu faraha badan uu yahay dadka ku nool Soomaaliya magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin dadkaasi xuquuqdooda dhan aniga ma aqaan waxay dawladda ka damacsan tahay ilaa hadeertaan mararka qaarkood waxaa la yiraahdaa magaalada Muqdisho waa caasimad oo maamul goboleed ma noqon karto xataa haddaysan noqon karin maamul goboleed oo aysan sidii Soomaalida hadda lagu wada federaalka u soo socon karin waxaa loo baahan yahay in laga sameeyo sida London magaaladan hadda aan joogno kale maayar u khaas ah oo leh degmooyinkii magaalada Muqdisho laga soo doorto maamulkaasna la doorto ummadaas sababta waxay u baahan tahay in wax matalo oo baarlamaanka gala laakiin haddii la yiraahdo magaalada Muqdisho maamul goboleedna ma noqonayso waa caasimadii dadkii meesha joogay xuquuqdooda ma helayaan macnaheedu waa dib la isu dilo meesha hadeertaan aan kala hadlayo kale marka nidaamka ugu fiican aniga hadda aan isleeyahay qaadan karto waa in nidaamka hadda London ka jiro kale aan qaadano mayor of Muqdisho la sameeyo oo magaalada Muqdisho oo dhan gobolka banaadir oo dhan meeshii la isku dhigi jiray maadaama hadda shabeellaha hoose laga jaray shabeellaha dhexna la gooyay in la sameeyo maayarkaas oo degmooyinka magaalada Muqdishona laga soo galo dadka ku nool 3 milyan xuquuqdooda halkaas ay ka helaan wadahay muridi hadda adiga laftaada ku siiyo hadda sida laga hadlay gobolka banaadir oo kale in muddo ahba waxa ka tagnaa dood waxa ay noqon doonto dastuurkan waxa lagu qoray leeyahay baarlamaanka uu sameyn doonaa maqaam gaar ah oo caasimadu ay leedahay maamulka hadda jirana qorshayaal badan oo laga rabay ku saabsanaa waa in golaha deegaanka kulsalahan ay sameeyaan degmooyinka ay ka soo doortaan golaha deegaankuna ay doortaan gudoomiyihii gobolka weli ma muuqato waxa u malaysaa in ay tahay dekreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha in lagu magacaabo gudoomiyaha iyo duqa labadaba marka maxaa hortaagan marka in golayaasha deegaanka la abuuro oo degmooyinku ay dadkii matali lahaay wakiiladooda noqon lahaay soo doortaan
golihii deegaankana markaas uu doorto guddoomiyaha gobolka si loo helo qof rasmiya oo markaasi codka shacabka ku yimid oo matala gobolka banaadir. horta waxa waaye marka ugu horeyso waxaa aniga waxaan joogi jiray gobolka banaadir ku-xigeenka doqo magaalada ahaa iyo governorka gobolka banaadir. howshaas aniga wax badan kasoo qabanay markii aan joognay arrimaha bulshada. ma sameyseen golaha deegaanka golo deegaanka markaas howshiisa waa socotay markaan sameynay waaga 2007 ka hadlaya. marka dambena meesha waa fashilmay laakiin mar dambe waa la sameeyay haddana waa fashilmay. marka waxaan ka wadaa waxaa la sameeyey deegaan oo maaragtay u eg waayo markaas ma haysanin degmooyinka xur ma ahan markaan anaga joognay. qaar waxay haysatay qolada kale haysatay qaarna dowladda gacanteeda ku jirtay. laakiin magac ahaan guud ahaan gobolka waa u jirtay magac laakiin hoos ahaan maamulka gacanta kuma jirin xukuumadda awooddaas ma lehen. xukuumadda magaalada waa la haystay qaybna xukuumadda ka talinaysay qaybna dad kale ka talinaysay. marka ma awoodin dowladda inay maaragtay gaarsiiso macna federaalka doorashada oo halkaas la doonayaan waxay ahayd markay xurtahay nin walbo one man one vote markii la gaaro. marka waxaan sameynay system oo ku meel gaara golo deegaan aan sameynay 63 qof annaan kasoo alag sameeyay gobolka banaadir 63 qof waxay dooranayaan mayorka gobolka ay dooranayaan. marka waxaa lagu systemkaas haddii la qaato waa fiican tahay oo la soo qaato min 63 gobolada hadda 7 gobol min 63 laga soo qaato si ku meel gaara waayo ma lahaayo one man one vote ma la gaarayo. laakiin codkaas oo la qaadayo waa inuu ku sareeyaa regional autonomy ma federal regional autonomy oo dhisan oo maaragtay deegaanka soo dooranayo maaragtay intii muddo ah maaragtay inay ahaato. marka muddo kadib hala fiiriyo hadduu federaal oo fiicnaado iyadoo sidii ah inay federal ka qaataan. laakiin systemka walaalka muriidi oo ka hadlayo oo ay sameeyeen xilligaas oo sheegay runtii nidaam aad u qaldan u ahaa runtii oo lagu xuquuqda dadka gobolka banaadir deganay oo asaga kamid yahay aniga aan kamid ahay oo lagu duufsiinay xaqooda ayuu saxiixay. runtii wuxuu ahaa maamulkii cadde uu hogaaminayay waan ka warqabaa oo asagana uu ku jiray maamul aad iyo aad u qaldan u ahaa sababtoo ah waxaa maamulkaas lagu soo daray 63 qofood aan gobolka banaadir dadka degan aan ahayn oo gobolada Soomaaliya oo dhan ka yimid iyagoo maamul goboleedoodii waa ninka bari joogo kala soo maamul goboleedkiisii haysta oo xagga ka soo galaya dawladda Soomaaliya ayaa haddana wuxuu ka soo galaya gobolka banaadir iyo Cabdi iyo Xamar Jab iyo Xamar Weyne. qaabkaas ayuu qaabkaasna waa qaab aan shaqeynin runtii federalismka hadii la yiraahdo waa qaab aad iyo aad aan uga soo horjeeda aniga shakhsi ahaan oo ah nidaam aad u qaldan sababtoo dadka meesha degan waa in ay helaan meel laga soo doorto. magaalada Muqdisho waxaa ku nool 3 milyan walaalkay wuxuu kamid yahay dadka magaalada Muqdisho degan beelaha magaalada Muqdisho degan ugu weyn ayuu kamid yahay beel horta ka weyn iyo beel ka yar ma jirto taas aniga ma aaminsaniba. dastuur markii la sameeyay runtii aqlabiye iyo aqaliye ma jirto qolaa badan iyo qolaa yar ma jirto. dastuurku wuxuu ku shaqeeyaa citizen muwaadin qofka muwaadinka Soomaalidana waxa naga maqan ilaa hadeertan xataa waqooyiga Soomaaliya hadda tagtay Somaliland iyo runtii waxa ka maqlaysaa mar walbaba qolooyinka laga tirada badan yahay intii ay jirto qolo laga tirada badan yahay iyo qolo badan Soomaaliya horumar ma gaarayso salkana ma dhiganayso midaas ay aaminsanahay. mid kale hadda ku soo noqon sidee maamul loogu sameyn karaa gobolka banaadir caawa waxaan u maleynayaa qadiyada ugu weyn aan ka hadlayna inay tahay waa sida hadda hore aan kugu soo sheegay in magaalada Muqdisho dadka deegaanka u leh magaalada Muqdisho sababtoo Soomaalidu waa kala gobol ma aan macnaheedu ninka Soomaaliga inuu isku noolaan karin magaalada Muqdisho in taas ula jeedo dad isla markaa halka marka taa tiraahdo waxay u fasiranayaan qola iska la magaalada Muqdisho qola iska ma la magaalada Muqdisho waa magaalo Soomaaliyeed Soomaalidoo dhan ay ka dhaxaysaa nin walbana waa u furan tahay sida magaalada Hargeysa Soomaaliya oo dhan u leedahay Boosaaso u leedahay Baydhabo u leedahay laakiin se waxa la yiri maamul ayaa la sameeynaya markii maamul la sameeynaya nin walba meeshuu degan yahay ayaa maamulka laga sameeynaya inkastoo Soomaalidii qabiil ay arintii ku sii saleeyeen federaalka laakiin waxaan ka hadlayaa deegaan ahaan dadka degan magaalada Muqdisho oo ugu faraha badan oo degan waa la yaqaanaa Soomaaliya oo dhan ninka degan Boosaaso waa inuu Boosaaso ka soo galaa ninka degan gaalkacyo ka soo galaya laakiin ninka xamar degan hadii la yiraahdo xamar waa ka soo galaysaa waa lagu ogol yahay kan Boosaaso jooga kan Hargeysa joogana xamaru ka soo galaa asagana maamulkii wax lagu siinaya taas waxay naqanaysaa xuquuqdii muwaadinka oo dhumo. marka waa inaan runtii aan dib ugu naqanaa wax yar anoo siinayso waa ka baxaya qeexitaanka dastuurka
iyo qaanuunka Soomaalidu wax naga qaldan iyo federaal markii la sameeyo federaalkii markii la sameeyay aniga waxay dawladdu la shaqeyn lahayd federalismka Soomaaliya dastuurkii ayaa ka maqan meesha waxaan yiri waxaan sameynaynaa guri ayaan kor ka dhisaynaa anagoo foundationka hoose aan ka soo sameynin sababta dastuurkii Soomaaliya dastuurkii aan dhisnayn ee dawladda la dhisay dastuurkan oo wixii dadka bini'aadam dastuur maxaa la yiraahdaa waa wax mujtamac uu ku heshiiyo mujtamacaas oo ah mujtamac xor ah oo aan la qasbin oo iraadadiisa qof walba uu doorasho ku sameeyo dastuurkaas ee isla ogolaadaan dastuurkaas markii la sameeyo kadib ayaa waxa la sameeyaa qaanuunka xoog ayaa lagu fuliyaa waxaan lagu fulinayaa shu'uuntii dadkaas wada heshiiyey lagu maamuli lahaa ayaa qaanuunka la yiraahdaa waa ka baxay wataay marka laga hadlo hadda dawladda kale shaqo badan u taala gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxa la yiraahdaa waa meesha kaliya ay hoos imaanayaan dawlad goboleedyada guud dalka ka jira in muddaahana waxa muddaa golaha xukuumadda in ay san si rasmiya u saldhiginin oo waxa muddaa in la is haystay muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf badanaa jiray xukuumaddii hore waa la riday baarlamaankaa diiday midii lasoo dhisay waa la kala diray oo baarlamaankan kalsoonida heleyna la ogaaday hadda weli ma jirto wasaaradda arrimo gudo oo awood leh oo samayn karta sixina karta khaladaadka badan ee ka jira xiriirka dawladda iyo dawlad goboleedyada sidee marka loo xallin karaa arrintaas waxa waaye maaragtay taas waa iska caddahay waxaa loo baahan yahay wasaaradda horta inay lahaato awood oo ay ku maaragtay ay ku lahaato gobolada waa in awood ku lahaataa haddii awoodka ku lahayn wasaaradda arrimaha gudaha awoodeed ka shaqeynaynin sida booliiska iyo maaragtay maamulada qaarkiisa in wasaaradda arrimaha gudaha inay awood toos u sii karto waayo maamulka gobolka wuxuu leeyahay awood ilaa iyo arrimaha nabadgelyada iyo wax soo saarka iyo waxbarashada iyo wax noocaas wixii ka badan waxaa iskale dawladda dhexe haddii aysan lahayn consequence haddii ku lahayn oo gobolkaas dhaha xor baa tahay waxaa doon sameyso sidii waxaan noqonaynaa khaliijka oo kale kala qaybso imaaraad camal imaaraadka inta waxaa waaye sharci cusub baa ka jira inta sharci kalaa ka jiro nin walba xor waa soo doona wuxuu ku leeyahay kan agteeda kalaab ma laga furaay muusig ma laga furaay kan waa ogol yahay kan wuxuu ku sameynaa wax kale uu ku sameynaa kan baabuur soo marka kala sharci waa marka asoo hal dawladda adan kala sharci marka taasoo kale mana qabato waxaan rabnaa Soomaali waa mid waayo haddii la dhaho dadka oo Soomaali waxay u badiin dad kalluumaysato u badiin waxay u badan dad oo beeraley u badiin dad waxay u badiin xoolo raacato marka saddexdooda waa isku baahan yihiin kan kalluumaysatada inuu inta kasoo bax Kismaayo wuxuu rabaa inuu Hargeysa kalluumaysto kii oo muxuu xooleyda geelka xag kasoo daaq bilaaw wuxuu rabaa inuu Kismaayo kaga baxo marka dhexdii waxay imaanaysaa xuduudaada geelkaaga yuu soo dhaafin marka waxaa aragtaa in wasaaradda arrimo gudaha oo tayale hadda aysan jirin oo xuduud hadda waxaa leeyahay xuduuda loo sameeyay intaas markaan ka hadalno xadiinta waa usoo laaban doonaa sida hadda aad ka dhawaajinayso si ka duwanaa hadda ka jirta dawlad goboleedyada ka jira Soomaaliya waxay leeyihiin wasaarad ama wasiir maaliyadeed oo kale leeyihiin waxay leeyihiin wasiir ama gaashaandhig ama amniga oo kale qaabilsan ay leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin wasiir qorsheyn iyo xiriir caalami oo kale mid qaabilsan ay leeyihiin qaar wasiir arrimo dibadeed ay leeyihiin يعني مدوينك ugu dambeyn waxa muuqatay in xataa dalal badan safiiro ka socday xitaa ay tagayeen iyadoo dawladda federaalka xataa ay waxba kala soconin marka ma ku muuqataa waxa soo khalad oo jira in dawladda dhexe ay qaadanayso mas'uuliyadda maadaama ayada marka horeba nidaamka ay sameyn weyso waa sax mid oo ku raacsanahay horta in waxa la furtay alla consulaata ayaa laga furtay maartay wadamada gobolka Soomaaliya sida Hargeysa iyo Garowe oo ayadoo aan wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda dhexe aan ka warhaynin totalmente khalad waa consulkaas halka jooga ma diblomaasi ma horta hadii sheego ninkaas halkaas la geeyay diblomaasi ma waxa consulaat waxa waaye wakiil oo ayaga geystay waaye laakiin waxa loo baahan yahay si sharci ah in loo geeyo marka asaga markuu halkaas aado waxa la qasab ah in dawladda Soomaali ay kala noqoto aqoonsiga oo halkaas ku joogo sharci ma sharci waxa waaye wasaaraddu way ogtahay Soomaaliya wasaaradda ma boog waxa maqlaysa meesha waxa laga furtay muxuu ayaa dawad Kismaayo hadda aan dawad waxa leeyahay waxa laga furanaa khalad waa wasaaradda ayadoo permission bixin wasiirka sirriga aan ka hadalna arrimaha dibadda labadiinaba waa ka soo shaqeysay wasaaradda arrimaha dibadda mas'uuliyadda cidda la marka ay wax ka qaban weyso ma aha inay dhaliil kale u jeediso dadkii gobolada joogay qof walba ama maamul walba meel ka jira waa u baahan yahay cilaaqaad inuu sameeyo laakiin haddii dawladdii laga arki waayay in ay shaqadaas qaban karto oo wasaaradii loogu talagalay arrimaha dibadda ay doorkeedii meesha ka baxday
iyada lafteeda ma la dhihi kara miya in goboladu ay iska u shaqaystaan waxay doonaan ay sameeyaan maya horta runtii walaalkayso waa runtii dowladdu waa dowlad daciifa dowladda Soomaaliya sidaan kuu sheegay waa dowlad hadda la kabkabayo hadda markii Japan dhibaatada ay ku dhacday arintu ku habsatay runtii dagaalkii labaad ee adduunka caalamka oo dhan ayaa soo kaalmeeyay oo soo saaciday dhaqaalaha wax walba laga soo saaciday dowladda Soomaaliya dowladaha adduunkana markuu dagaal sokeeye ka dhaco xarb ahliye ka dhaco waa la saacidaa sida hadda Soomaaliya gacanta loogu hayo kale ayaa gacanta loogu qabtaa marka Soomaaliya waa dowlad gacanta lagu hayo maamul marka awoodeedana ma balaarsano oo meel walba ma gaarsiisno runtii maamul goboleedyada ayaa waxa laga rabay inay dowladda la shaqeeyaan ay dowladda wax ka soo dhisaan dowladda Soomaaliya laakiin haddii maamul goboleedyadii iyaga iskood iskaga shaqaysanayaan runtii midda kalena waxa looga baahnaa dowladda federaalka waxyaabo ay qaban karto hadda walaalkay asaga wasaaradda arrimaha dibadda joogaan wasaaradda arrimaha dibadda kama shaqeeyo run ahaantii asaga hadda dowladda federaalka matala runtii iyaga ayaa waxa looga baahnaa khaasatan asaga hadda qaybta Asia inkastoo uu yahay agaasimaha waaxda Afrika agaasimaha waaxda Carabta iyo Islaamka qaybo fara badan ee arrimaha dibadda leedahay wasiirka arrimaha dibadda ayaa joogo inay la xisaabtamaan qayb qunsuliyadaha iyo dadka soo galaya runtii haddeertaan arintii ugu dambeysay Soomaaliya ay sameeyso kale baarlamaankii joogo dowladii golihii fulinta joogo madaxweynihii oo dalka jooga iyaga u joogay waxay ogolaadeen in la sameeysan karo wasaaradihii lacagta oo kale wasaaradii maaliyadda wasaaradda midda hadda ku sheegay waxaan ku dhahay waxa sanadkan waxaan u bixiyaan ku dhahay sanadkii xaqiiqada sababtoo ah waa in xaqiiqada isu sheegnaa runtii hadda maamul goboleedka Somaliland oo kale iyo Soomaaliya aniga waxaan qabaa inaysan wada hadlinba sababtoo ah maya runtii waxaan kaaga wadaa adiga in aan lala hadlinba runtii in aan lala hadlinba sababtoo ah wax lagu la hadlo hadda aniga meesha uma bajeedo arrimaha dibadda hadda waxa uu sheegay in uu dalbaday xitaa in wadamada Britain oo kale Sweden Denmark dalalka gobolka oo kale inay goobjoog ka noqdaan wadahadallada u dhaxeeya iyaga iyo dowladda dhexe si yani looga dhabeeyo go'aamada meesha lagu gaaro waxaana ku dhaliilay dowladda inay macnaha ka cagajiidayso in heshiis rasmi ah ay la galaan runtii taas waxaaba qalad ahaan ku dhahay in lala hadlo Somaliland wax la yiraahdo dowladdan jamhuuriyadda la magac baxday Somaliland sababtoo waa dhul Soomaaliya ka tirsan ilaa caawa aan joogno iyagana way og yihiin dadka deganna way og yihiin waa dad Soomaaliyeed walaalaheen ah wax dhibaato uma arka aniga maamulka meesha ay ka sameysteen horumarka ay gaareen dhinaca waxbarashada caafimaadka nabadgelyada waxa laga sameeyay waxa uu arkaa wax horumar ah waana soo dhaweynaynaa laakiin in dowlad Soomaaliyeed oo dowlad federaal Soomaaliya ay hor fariisato maamul sheeganayo inuu wadanka go'ay kow haday doonayaan inay go'aan walaalaheen Soomaaliya la magac baxay jamhuuriyadda dhinaceeda inay Soomaaliya ka go'do sheegata waa in ay hotar Soomaaliya dib ugu soo noqotaa ee magaalada Muqdisho u yimaada Siinlaaya asoo ah gudoomiye goboleed kadib dadka degan waqooyiga Soomaaliya haday go'aansadaan inay Soomaaliya ka go'aan sidii Scotland ka dhacdo kale dimuqraadiyadda caalamka waa loo maray qarnigii 20 marayna waa in ay Soomaaliya dib ugu soo noqdaan ay Soomaaliya dib ula shaqeeyaan hadii ay doonayaan inay go'aan wax dhibaato kuma dhisno qof diidana male waa in sanduuq loo dhigaa codka lagu ridaa markaas afti la qaadaa hadii ay ayaana si caadi ah u go'aan badan ayaa khadka ku jira oo iyaguna barnaamijka inay ra'yigooda ku soo gudbiyaan qayb ka ah daawadaha ugu horeeya ayaa markana fursad siinayna anagoo weydiinayna ra'yigiisa halo assalaamu calaykum wa alaykum salaam magacaaga iyo meesha naga soo wacaysid walaal Cabdikariim aa leedahay waxaan idin ka soo wacaya Bristol ayaa Cabdikariim barnaamijka la socota hore u gal halo Cabdikariim waa kula soconaa barnaamijka hore u gal hadaa la socotid ها walaal waxaan rabaa inaan barnaamijkan ka dhiibto fikradeyda oo isleeyahay waa fikrad wax ku taraysa ayaad haysaa haye soo daa marka fikirkaaga muxuu yahay niyo arrimaha Soomaaliya horta waa ku faraxsanahay caaw inaan ka qayb qaato oo barnaamijkan aan helo in badan ayaan isku dayay inaan ka qayb qaato oo ii soo gali waayay Cabdikariim igala soco telefoonka fadlan dhalada ha igala socanin hore u gal fikirkaaga waa sax waa kula socdaa walaal marka waa waxay roo igu go'ay laakiin marka waa niyo siyaasadda Soomaaliya ayaan wax badan daawanayay haye marka niyo wallahi siyaasadda Soomaaliya saaxiibo waa wax badan aan la soconay daawanaynay maalin walba wax bay dadkii isku dhaxqasayaan wayna yaqaaniin dadkii way og yihiin waxa fiican oo wanaaga in la sameeyo maanta waxaan ku faraxsanahay in xoogaa hadda maamul goboleedyadii ay Muqdisho imaadeen isu soo dhawaad inuu muuqdo laakiin qaladaad badan aa jiro dowladda federaalkana qalad ay leedahay qaladaad badan maamuladana qaladaad jiro Soomaaliya oo dhib hayo uu yahay
dad aqoon-yahano ah oo haddana aqoon aan lahayn. ay maxaa kala jeeda dad aqoon-yahano Marka- haddana aqoon aan lahayn marka aad leedahay hadda sida dowladda hadda waxaa meesha ka socda waan la socdaa, waan daawanaa mar walba, annaga meeshaana joognaa, siyaasadda si fiican oo la soconaa. marka waa ka xumahay khadka telefoonka uu nagala hadlaya cabdikariin aada u liitaa, marka waa kaaga mahad celinaynaa fikirkaaga iyo ra'yiga aada noo soo bandhigtay. waxaan rajaynaynaa mar kale inaad barnaamijyada kale ka qayb geli doontid. daawadaha xiga ayaa markana fursad siinaya. halo assalaamu calaykum. السلام عليكم. wacalaykum salaam. magacaagii meeshaa naga soo wacaysid. هلو halo waa kula socdaa, magacaagii meeshaa naga soo wacaysid. هلو waa ka xumahay daawadahaasna isma maqli karno cilad xagga telefoonka ah darteed. aan markana siiyo kan kale ee ku xiga. halo assalaamu calaykum. halo assalaamu calaykum. السلام عليكم. wacalaykum salaam. barnaamijka waa la socotaa dabcan, magacaagii meeshaa naga soo wacaysid. السلام عليكم. halo assalaamu calaykum. marka hore waan imaadinayaa adiga iyo labada wiil fadhiyo waxaan halo mi maqlaysaa waa ku maqalnaa si fiican. hore ugal fikirkaaga. axmed ali dhaa london ka soo hadlaya runtii barnaamijkaada anigu mahadinaya yarka runtii aad iyo aad u taabtay wiilka dhalinyarta agtaada fadhiyo runtii magaciisa runtii waxaan ku mahadinayaa runtii barnaamijka sidaa u samaysan. haddaan usoo noqdo su-aasheeda horta nama soo marin 23 sanaad lasoo dhaafay madaxweyne lamida madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya sheekh xasan maxamuud. runtii shacabka reer muqdisho ama ummadda soomaaliyed wuxuu ka dhigay dad walaala isjecel isku imaado awal iskuma gudbi jirin. wuxuu sameeyey hoggaan runtii midaysan, wuxuu sameeyey ciidamada militariga, wuxuu sameeyey waxaan la ilaawi karin oo mataqaana hadduu xukunka beri ka tagta xataa xaqiiqda ay tahay ummad runtii burbursaneed 21 sano soo kabsamatay haddana mataqaana runtiina waa ku mahadinaynaa dadka walaalahood oo waxgarad ka ah gobolada kale ka imaaday inay arkeen maarag dadkii uu soo daalay qorbihi lagu daalay wax lagu daalay. insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa prime ministerkan inuu soo magacaabo dad runtii caqli leh oo wadankan badbaadin karo. wadanka runtii meelo badan ayaa looga soo duulay, gudaha lagu jiraa, dibadda lagu jiraa, laakiin sheekh xasan maxamuud keligiis wax ma qaban karo. waa in annaga dhan gacmaha isqabsanaa aan ka saarnaa. runtii markaa usoo noqdo ugu dambeynta su-aasheeda wiilka dhalinyarta ee agtaada fadhiya aad iyo aad ugu mahadinaya. waxaana leeyahay adigoo kale haddii la heli lahaa ummad soomaaliyed waa guulaysan lahayd. asalamu calaykum. waa mahadsan yahay daawadahaasi. daawadayaal weli waxaanu ku jirnaa barnaamijka dooda royal oo idinkaga imaanaya stuudiyahaanu ku leenahay galbeedka magaalada london. weli barnaamijka waxaa noo soo socda su-aalo kale oo martida barnaamijka aan weydiin doono iyo qadad kale oo daawadayaashu ay barnaamijka ra'yigooda kusoo gudbin doonaan. hase yeeshee kusoo dhawaada haatan qadar yar oo adeega bulshada. معان ويعني أنا دور جيل مركور ميلو فوق فوق أيام ما هل كان لوكن رتي آدي والد عن رشيد ما شاء الله حلينا قف كستو ولا ويلكم كسر دوا ومقايديني مال مناسبة وبهند عفدا هرمشتن ما شاء الله كم قاعدة أبي قرح بلنتهاي صفار سكن آد معان نواة ولم أكن بروس سكن كفرنا بلعدينا بنتدينا شغالة إن بعادي ما هو إحنا ليش كان كرها أمر waagaag daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka dooda royal oo idinkaga imaanaya stuudiyaha aanu ku leenahay galbeedka magaalada london. anigoo maxamed yuusuf ayaan barnaamijka idin daadiinaya. haddaan si guda galno qeybaha kale ee noo haray barnaamijka sida hadda aan la soconno waxaa loo fadhiyaa in dowlad goboleeda saddexda iyo dowladda dhexe ay kulan guud yeeshaan oo is-afgarada islamarkaan laga hadla arrimaha federaalka calaaqaadka ka dhexeyn kara. yani midin muuqataa marka loo baahan yahay in la helo xilligan la gaaro waqtigii loo baahnaa in la helo qaab ay ku wada shaqeyn karaan dowlad goboleedyada jira iyo dowladda dhexe. muridahay waa loo baahan yahay maaragtay marka hore waatan ku sheegay maaragtay aan wada hadalno macnaheedu waxa waaye aan heshiino. marka soomaalida hadda waxaad moodaaba inay soo isfahmayaan maaragtay wada hadalkooda inuu badanaayo
waayo marka hore markii shir hadda sida madaxweyne Puntland 9 jeer uu tagay intuu qabtay xilka Ethiopia markaan waa markii labaad uu imaanayo Muqdisho markan waxa uu yimid aaskii ra'iisul wasaaraha maruu yimid iyo maanta ay ku tahay laba 9 jeer uu tagay Ethiopia inta ka imaalaha marka waxaad moodaa in maartal uu qaadanayo halkaas marka maanta waxaan leenahay doon timid kulli waxa maarta rajadu way fiican tahay walaaltinimada in soo dhawaado oo ayakana inay muujiyaan maarta in dawladda dhexe inay hoos yimaadaan waxa waaye marka ninkasta dawladda maarta maxaa galay dawladda dhexe taas federal ma waxa waaye waa ghost oo macni sida maartii hadda Soomaaliland ku dhawaaqday oo kale waa ghost oo kale mid taasna waxay tahay qalbi jab ay ku tahay shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo 25 sano oo ku dhawaad ruuc qarni oo dagaal sokeeye iyo dawlad ku meel gaar iyo waxa noocaas ku jirnay marka ayakana waxa la rabaa inay maartay inay mas'uuliyiinta gobolada in maartay madaxweyne in la dhahino oo la dhaho maartay governorayaasha gobolada oo magaca madaxweynaha keenay dhibaato sida maartay haddaan ku sheegay oo maartay khaliijkii wax noocaas iyo waxa way amiirka saas iyo waxa la dhahay qalad waa marka governorka gobolkaas in loogu yeero maartay madaxweyne iyo wasiir halkaan wasiir warfaafid marka waxaad moodaa maartay meesha in qas ka socoto waa tahay Axmed markaan adi laftaada isla su'aashaas oo kale kugu celiyo ma moodaa in awoodaha siman hadda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo kale marka la fiiriyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada isku arkaan inay ku awood yihiin madaxweynihii dowladda dhexe oo kale tusaale ahaan waxaa jirtay dowladdan ka hor markii intaan ku meel gaarka laga bixin waxaa jiray waxa la yiraahdo saxiixayaasha road mapka oo goboladii oo dhan ay saxiixeen oo isku sin ay u saxiixeen markaasi madaxweynihii berigaas jiray ee dowladdii ku meel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed marka ma moodaa in ba ay u haystaan dowlad goboleedyada hadda jira madaxdooda inay la mid yihiin madaxdii ugu sareysay dowladda oo kale runtii waa sax saas waa kula qabaa mushkiladana walaalkay Sheekh Shariif madaxweynihii Soomaaliya runtii oo ah nin aad iyo aad isku dheernahay runtii qaladaad fara badan ayuu sameeyay oo aan qaladaadka aan ku eedeynaa ilaa maanta aan joogno ee kamid tahay saxiixayaasha wixii la yiri runtii kama fiirsanin runtii waa loo hoosgeliyay waa nin aad iyo aad siyaasi ah waa nin aqoon dheer aan u leeyahay runtii waa qalad bin aadanka ku dhacaa marka kullu bin aadam khata oo khayr khata in tawaabin ilaahay yiri marka taas waa qalad laga soo gudbay marka qaladkaas runtii uu madaxweyne Shariif galay ayaa mushkiladda Soomaaliya ilaa hadda ka socoto dhinacan maamul goboleedka Puntland ayaa runtii ilaa hadda daba taagantay oo hadda marka xataa doodaha la yimaado markii meel walba laga hadlayo website-yada ay ku soo qorayaan asaaska Soomaaliya oo kale marka meeshii garow lagu saxiixay aniga waxaan qabay in magaalada Muqdisho lagu saxiixo sababta magaalada Muqdisho iyada magaalada madaxda Soomaaliya ah dhibaatadaas oo dhan way yaraan lahayd midda kalena dadka hogaamiya maamul goboleedyada runtii xataa iyagoo qaarkood ay yihiin dad PhD holders ah sida Cabdiweli madaxweynaha gudoomiyaha gobolka bari ee Nugaaland dhahnay madaxweyne runtii aniga ma uma aaminsanay shakhsi ahaan aniga saa u aaminsanahay waa magtahay gudoomiyaha gobolka bari ee Nugaal runtii meeshii uu horumar ka sameyn lahaa runtii wuxuu u noqday sidii dadka qaarkood aan aqoonta lahayn oo gobolada qaarkood hogaamiyay inkastoo magacadooda inaan sheegay aan doonayn sidoodii kale ayuu u dhaqmay oo magac qabiilaad iyo wuxuu u dhaqmay si aan Soomaalida aan ku habooneen marka runtii taas marka dhinaca uga soo baxno waxaan rabaa dawlad maxay tahay runtii state dowladda Soomaaliya runtii ma 24 saacada waxaan ka hadalnaa magaalada Muqdisho horumar laga gaaray Hargeysa horumar laga gaaray Garowe horumar laga gaaray runtii dadweynaha Soomaaliyeed been ayaa loo sheegaa maamulka dhexe ee xamar joogo kan Somaliland waa go'aadahaya kan Puntland oo dhahaya waa go'nay waan joognaa Jubbaland gabigood ummadda been ayaa loo sheegaa ummadda waxa laga dhacsiiyay laami la dhiso iyo samaafara meel laga sameeyo inuu horumarka yahay horumarka taas ma ahan marka waxa looga baahan yahay maamulka dhexe ee Soomaaliya ka jira magaalada Muqdisho ilaa hadartan isbitaal laga ma sameeynin isbitaal ka furan ma leh kan Ordagan Hospital loo bixiyay oo Turkiga shala furay oo asagana lacag umada laga qaado markay galayso service-kii accident emergency digfeer u lahaa magaciisa waa in dib loo soo celiyo qaladaadka kale ugu weyn runtii aan la yaabo waxa kamid ah Soomaalida isbitaalkan magac ayuu lahaan jiray waa taariikh digfeer ayaa la dhihi jiray Ordagan Hospital lama yiraahdo dowladda
turkiga way timid hadduu u baahan yahay madaxweynaha turkiga in magaciisa meel loogu sameeyo waxaa loo baahnaa inuu isbitaal khaasa dhul khaasa intuu gobolka banaadir ka qaato maya runtii waxaan rabaa waxyaaba badan oo runtii soo gelgelayaa jira markaan ka hadlayna mogtahay dhinaca serviceka markaan ka hadlo marka dowladda magaalada muqdisho hadda ka jirto madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hogaaminayo runtii wax ay qabatay ilaa haddeerta aniga ma arko xagga serviceka ah service ayaa loo baahan yahay governmentiga iyo stateka wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo service dadka magaalada muqdisho degan runtii waa ka baxaya dadka magaalada muqdisho degan waxaa laga qaadaa canshuurta ugu badan soomaaliya oo dhan ee dowladda soomaaliya ku dhisan tahay iskuulaad ma laha lacag la-aan ma haystaan jaamacad lacag la-aan ilaa hadda lagama furin jaamacad yar ayaa waxaa laga furay magaalada qayb ka mid ah oo ardada soomaaliyeed ay qaadan karin deeqda waxbarasho ummadda ma helaan isbitaalka madiino dib habeen looguma sameyn dowladaha adduunka xataa oo musaacadaha soomaaliya siinayo dowladihii yimid tii shariif hogaaminaya tan hadda xasan sheekh tii cabdulaahi yuusuf mid isku dayday ma jirta aniga ma arag wasiir caafimaad oo adduunka tegayo oo wax weydiisanaya xataa in wax loo qabto ummadda soomaaliyeed marka ilaa laga helayo dowlad dhexe oo samayso servicekii soomaaliya looga baahnaa horumar lama gaarayo maamul goboleedna ma hagaagi karo waa tahay waa maasan tahay daawadayaasha ayaan fursad siinayna halow asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum waa ka xumahay daawadahaas waxaad moodaa inuu dhalada la socdo aanu telefoonka la soconin waxaan rajeynaa mar kale inuu nala soo xiriiri doono fikirkiisa uu soo gudbin doono daawadaha xiga halow asalaamu calaykum وعليكم السلام magacaaga iyo meeshaa naga soo waceysay أم السئيم haye barnaamijka waa la socotaa سفيعا haye fikirkaaga والله أنا قاعدة فكرتي كديبتو إن مامور قبلياتها الصومال لو لسايو وحي إلى تاني أقلي قاعدة كان ضدنا قولي كله ضدنا أي كل المي سبيشال ويل كوتوا سلامة يا جلاس كمدوغ وبجرة هايك عدك إيه بلاغنا نبيغا وحنا السلام عليكم كنت أموشن كي أدو وكعسين هاي وحيوات بسعر مغلو ما بحر لك هرب ay maxaa ka leedahay marka xiriirka dowlad goboleedyada jira hadda iyo dowladda dhexe ka dhexeeya adigu maxaa ka aaminsan tahay aniga waxaan ka aaminsanahay nin asiga wuxuuna lahayn la siiyey hadduu maanta soo raadiyo oo loo diidana waxaa waa xanaaqayo oo waa go-aynaa iyo balaabalaa wadan u aqaanaa wadanistaan sidee lagu sixi karaa marka oo loo heli karaa in dowladda dhexe ay maamuladii kala hanato iyada uga awood badiso walaal raalaha waxaan rabaa bliis inaad taamiskiisid waxaa waaye dadka magaalada muqdisho jooga dekada iyo raboorka wax ka soo baxa dowladda turkishka waxyaaba ay soomaali ka samaysa danaheeda goonida oo shaksiga ayay ku wadataa isbitaalka digfer magaca laga bedelay polytechnic way ku shaqaystaan laamiyaasha ay soomaali ay ka sameynayeen waxyaaba ay ayaa u maleeya inuu turkish wuxuu sameynaa laakiin ma ahanin nin kastana wuxuu rabaa inuu dantiisa keliya oo soomaali ku fulsado whatever siduu doonaba ha u isticmaalo ama maamul gobol ha u isticmaalo ama si kale ha u isticmaalo laakiin waxaan leeyahay beliis dowladda soomaali ee xasan sheekh oo hogaaminaya ha ka daayaano dadka magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellada dhexe degan dowlamanka lagu haayo hataa kaawadii dadka caruurta lagu soo koriya waxaa la siiyey turkisha la siiyey dekada soomaaliya ee dadka caruurta xamaaliga lagu soo koriyey dadaa la turkisha maanta baalka maxay ku shaqeyn dowlamanka iyo gardarada lagu haayo shacbiga labadaas gobol degan halaga joojiyo dowladda soomaaliya haka joojiyo waa maasanta waa kaaga mahad celinayna fikirkaaga dad badanaa telefoon ku jira waa rajeynayna waqti kale aad ka hadli doontid aragtidaada oo intaa kasii faahfaahsan daawadaha kale xigaan markana fursadda siiyo halow asalaamu calaykum calaykum assalaam magacaagii meeshaa naga soo waceysid calaykum assalaam walaal ma maqlaysaa waa ku maqlaa magacaagii meeshaa naga soo waceysid ha walaal magacayga waxaa la yidhahdaa caraale waxaan kala soo hadlayaa switzerland ayaa caraale kusoo dhawo barnaamijka fikirkaaga ku saabsan calaaqaadka ka dhexeyn kara dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ha walaal horta marka hore saddexdiina waan idin salaamay salaanka bacdi horta marka ugu horeysa waxaad moodaa haddaan soomaali nahay inaynaan fahamsanaynba waxa la yidhahdo dowlad anoon sii dheeraynayn horta dowladdu laba arrimood bay leedahay waxaas qalaad lagu yidhaahdo de facto iyo de jure recognition nacam waxaan ujeedaa aqoonsi caalami dowladdu inay hesho iyo de facto iyo inay awood u leedahay dalkoo dhan inay iyadu sugto marka innagaa soomaali haddaan nahay koob iyo sagaashankii dowladdii militariga ay burburtay dowladdeenii waxay noqotay dowlad faashila
waxa afka qalaad lagu yidhaahdo failed states marka dowladaha failed stateka sideedaba meelo badan bay ka dhacday misal waxay ka dhacday Rwanda oo kale oo genocide oo ka dhacay Rwanda oo kale maxay u badbaaday inagu aan badbaadi weynay taas waxa weeye waa arrin la xidhiidha geopoliticska innaga haddaan Soomaalinahay international community-gu ma rabaan in dowlad Soomaaliyeed dib loo yegleelo dowladaha derisku ma rabaan in Soomaaliya dib loo yegleelo innaga lafteena haddaan Soomaalinahay DNA-geena qabiil ku dhisan oo waxa weeye waxaan ku noqonay ma taqaanaa qarnimo Soomaaliyeed wadaniyiin dad patriotic manihin marka dhibaatooyinka in haystaa waxa weeye waxyaalahaas ugu waaweyn misal example haddaan soo qaado hadda dalka Syria waxa ka socda civil war haddii hadda la yidhaahdo Israel ha loo diro Yuhuudda ha loo diro oo nabadgelyaha ka dhaliso Syria macquul ma tahay marka Soomaaliya waxa ka jira waa arrimahaas oo kale dadkan gobolada iyo maamulada ku jiraan waxa weeye dhammaantood waxay ku salaysan yihiin qabiil bay ku salaysan yihiin uma jeedaan qarannimo arrinta federalismkana anu Soomaaliya waa ma ka soo horjeedaaba sababta Soomaaliya waxa weeye waa dad isku afana isku dhaqana isku idaa anaha federaalka laga sameeyo waxa weeye waa dad very heterogeneous oo aan isku afayn aan isku dhaqan iga raala waan ku dheereeyay marka waxa fiican in Soomaaliya loo sameeyo sa inanka aw sheegay wax la yiraahdo decentralization wax la yiraahdo oo maamulka hoos loo dijiyo runtii iga raala hada waan ku dheereeyay nagala soo xiriray Switzerland fikirkaaga waa kaaga mahad celinaynaa gabagabada barnaamijkan ku jirnaa haddaan hala su'aal idin weydiiyo iyadoo waqtigan uu aad u xiriirin ugu yahay hadda wixii dhacay hadda waa ujeedaan maxaa la yidhahdaa in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe xitaa aysan jirin wax rasmi oo ka dhexeeya ama waxay heshiis ku yihiin marka laga hadlo xaqiiqda sidee marka sidee xeer lagu xigtaa halkan ay ku nabad galaan hadda sidee wax lagu sixi karaa maxaa tala ah oo aad u haysaan dowladda dhexe ama dowladda ay ku wada shaqeyn karaan labadooda muriidadaan ka bilaabo horta maaragtay waxay ku xiran tahay depend wasaaradaha hadda la dhisaayo in maaragtay hawshaan ay dardar geliso waqtigeena wax ma gaarin higsiga 2016 waxaa ka dhimay hal sano iyo bar marka waxay ku xiran tahay dependency wasaaraddaas hawshaas ay gudato waxaan ku talin lahaa maaragtay haddii ay taas dhac weyday in la sameeyo saan soo jeediyey min 63 oo gol la sameeyo oo kumeel gaar ah oo maaragtay maamul loo sameeyo maaragtay authority la siiyo oo si aan ku sheegay la soo dibciyo awoodda maaragtay la siiyo maamul goboleed oo dibacsan maaha maamul goboleed oo go-ladahay maamul goboleed oo loo dibcinayo hawsha la siinayo qaarna hawsha dowladda dhexe marka taas in maaragtay lagu heshiiyo dowladda dhexena inay taas fuliso kuwaana maxaa gobolada oo hadda ku haminaya inay go-aan oo idhahaan maaragtay hadda waxaan doono ayaan la samaysanayna xiriir wadamada jaarka ah hadhow waxay imaanaysaa haddii juqraafi ahaan Soomaaliya oo maaragtay si fiican loo hubinin militariga iyo juqraafiga afarta muhiimsan maaragtay oo sala waxa waaye juqraafiga oo xukuumad ilaaliso oo qarannimada inta ay ka kooban tahay dhulka Soomaaliya oo iyo militarigeeda oo la xoojiyo wadan dawladda haddii military aan lahayn quwad aan lahayn adduunka ma ku dhageysanayaan macnaa nidaamka ku xiran tahay waa isku xiran yihiin haddii nidaamka oo militariga oo la habeenin oo la dhisin oo xoog loo yeelin oo hal militarina xukumaa la rabaa maaragtay kumaandaha joogo Kismaayo inuu xukumo ilaa Soomaaliya geeskeeda laakiin haddii kumaandayaal oo nin walbo maaragtay uu leeyahay kumaanda gooni meel kale ku amar qaadanayo dawladda wax soconaya male waxaa loo baahan yahay in Soomaaliya maaragtay dadar geliso oo maaragtay juqraafi ahaan iyo military ahaan iyo dhaqaale ahaan dhaqaalana loo baahan yahay oo degadaha oo maaragtay ku yaala gobolada todobada gobol degad kasta hadda culayska waxaa saaran gobolka Banaadir degadeeda kale la isticmaalo lacagta kasoo gashay airport laakiin kan Boosaaso ku yaala ka Berbera ku yaala ka Kismaayo ku yaalo iyo gobolada dhexe lacagta kasoo baxdo iyo Baraabo dadka degana qato
ma la rabo waxaa loo baahan yahay in loo sinaado dhaqaalaha guud in loo sinaado ay Axmed ugu dambeyntii talada runtii walaalkay Switzerland kasoo hadlaya calaale runtii asaga barnaamijkii caaw ka hadlayn oo dhan ayuu noo soo koobay runtii aad iyo aad u mahadsan yahay waan salaamaya runtii sidoo walaalkay sheegaba Soomaaliya nidaamka systemka hadda la wado wax soconaya maahan haddaan taariikhda dib wax ugu noqdano anigoo kusoo koobayo sanadkii 1960 markaa xorriyadda qaadanay Soomaaliya iyadoo gebigoodu wada ahaan wada jaahiliin ummad aqoonta ay ku yartahay wax akhriska iyo wax qoris la'aanta ay ugu yartahay ayaa waxa noola keenay nidaamka liberal democratic ah ayaa noola keenay iyadoo Soomaaliya ayaa lagu hogaaminayaa tii ka dhacdana waa la ogaa dawladda inqilaabkii oo Maxamed Siyaad Bare ayaa ku xigtay iyadana waxay noo keentay nidaam ishtiraakiya shuuciye balaaye wax aan Karl Marx iyo adduunyo iyo waxyaabo iyo habku uu sheegayay ayaa istiraatiijiyada laga bilaabay hadda nidaamka Karl Marx uu waday Maxamed Siyaad Bare xataa sidii Karl Marx waa filosof weyn oo Germany oo Yahuud dadka qaarkood Yahuud ay ku leeyihiin waa nin aqoon-yahan aad u weyn oo adduunka oo dhan laga yaqaan oo Germany u dhashay runtii habku uu xataa u sameeyay maadiyal istiraatiijiya shuuciya ay ka soo bilaabanayeen kadib waxay soo marayeen ra'aasumaaliye qabaliye kadib ayaa waxa la gaaraya nidaamka istiraatiijiga waa nidaamka ugu dambeeyay uu sugayay ayaa adduunka lagu gaaraya dhaqaalaha uu yiri inkastoo san Marcus uu soo arag oo intuu noolaa kadib haddana uu yiri nidaam al-Aasiyawi nidaamka Aasiga Asia oo wax soo saarka ayaa jira runtii wuxuu ahaa nidaam qaldan asagana wadaadada lala dagaalamay diinta lala dagaalamay kadibna nidaamkaas markuu meesha ka baxay nidaamka inqilaabka aniga inqilaabka oo aqaan kacaan uma aqaan sababtoo ah dawladda dhexdeeda uu ka yimid haddana barnaamijka aad u noogu yaryahay waxaasoo dhan aan kasoo gudubna 2000 ayaa waxaan walaalkay shirku ka qayb galay ayaa waxaana lagu keenay nidaamkan federalismka ah waa nidaam la soo diyaariyay oo diyaarsan oo la soo kariyay nidaamkaas qaata fad ama hafadin waa lagu fadsiinaya waa lagu fashilmaya marka maxaa looga baahan yahay ummadda Soomaaliyeed in ay taas ay ka wada fariistaano oo dib heshiisiin cusub iyo ummadda ay dib iskugu timaado 2016 kana aniga ilama ahan waxa la sugayo in la gaari doono anigu waxaan aaminsanahay maaragtay haddii dawladda si aan ku sheegay inay dadaasho haddaan kusoo noqdo gobolka Banaadir waxaa la yiri qabri iyo qafkii loo wado lagama qarayo waxay socotaa gobolka Banaadir haddii la badbaadinin dadka deegaanka xamar hadda waxaa la wadaa beryahan in maaragtay wadatashi inay sameynayaan dadka hawiyaha iyo banaadiriga inay wadaashiiyeen inay baaq soo saaraan inay kasoo horjeedeen waxay rabaan inay dhistaan gobolkooda Banaadir hawshaas haddaan wadnaa maaragtay uu ku jiro Nuur Cadde iyo maaragtay Xali Jarman Yaasiin Bulsho iyo Cali Shiino oo taasi anako Banaadir iyo qaniga iyo Khalid Macuuni dhahan nin kale oo laay Maki la yiraahdo iyo oday kale ayaa qayb galay lama baaqsan karo in gobolka Banaadir xal loo helo marka anigu waxaan wadnaa hawshaas in Banaadir si degdeg ah loo xaliyo arrinteeda dawladda caqabad ku noqotaan sida maamulada kale jira hadda ma anaga waxa hawsheenu carabna maamulka ninkas maamulkiisu noo macdanaa waa ma santahay hawsheenu carabna inaan noo macdanayo dawladda iyadoo jirto pressure oo nuglayo xukuumadda inay naga dhaafto maamulkeena in istaajino federaalkeena in Soomaaliya Muqdisho Banaadir state oo gooni ah oo governorka dawladda dhexe balan qaadaysan hada caqabad ku noqon doona ma kuma naqanina dawladda dhexe ay guud ahaan barnaamijka dooda Royal oo idinkaga imaanayay stuudiyahan ku leenahay magaalada London intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Axmed Cabdalla Liibaan oo ah markaas agaasimaha xarunta cilmi baarista geeska Afrika ee istiraatiijiyadda iyo sidoo kale Cabduqaadir Suufi Maxamed oo loo yaqaan Muridi Golof oo ah agaasinka wasaaradda arrimaha dibadda ee qaybta Asia isla markaana xilal badan oo kala duwan oo safiir ku-xigeenka ka soo qabtay meelo badan oo caalamka ka mid ah isla markaana madaxa xisbiga cadaaladda iyo sinaanta sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii Soomaalida ee khadka taleefanka barnaamijka kaga qayb galay ee fikirkooda soo gudbiyay inta aanu fursadda u helin waa ka raali gelinaa tan intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteeyo isku duuban sidaas iyo nabadgelyo barnaamijkana waxaa noo fududeeyay soo saaristiisa maqaayadda ama restaurantiga The Continental oo ku taala xaafadda Harleyden ee galbeedka magaalada London dhammaantood isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh